halkan waxaan kusoo gudbinayaa maanso kooban. maansadaasoo la magac baxday qiraal, iyadoo daba socota silsiladii uu curiyey cabdi xaaji maxamed ee qoomiyad isjecel iyo carab maxamuud jaamac iyo golihii abwaaninta afka iyo dhaqanka shanta soomaaliyeed gaadh shansa. dhegeysi habboon. ragga qaafka curiyey qalqaloocu diidee misna kala qorsheeyey sugaanta qarada leh ereyada ku qeexow. dadku waa qaraabi iyo qoomiyad isjecel aan marna kala qaloonayn, marna cudur qabiil baa kala qaybinayo, misna waxay u qaateen qaabka noloshu inuu yahay dadkoo kala qoqoban iyo dalka oo la qaybsaday. hal yar aan ka qeexee sida laanta qadowgoo roob yari ku yiri qabax, qadow iyo dirkeed iyo qaalmaheedii loo dhigay kollay waa qadhaadhow ku qaboobi maysee, halka uu qalluuc iyo qarowga uu ka soo galay ama qaab dhismeedka iyo qarannimadu waxay tahay, ama shay qarriban oo qaamuusku diidiyo jirin shay la qoonsaday, ama qaali dumar oo rabi quruxu dhaliyo qaangaadhka dhaafto cidi aanay qabin oo qaadi loo kaxaystiyo misna maharku qabanayn, ama geed qur-aan oo quruxdiisa laamuhu qariyeen caleemuhu kuntuna ay qallalan tahay, ama qaaban oo faras inta uu isqabadacay jahaadaan qaboobeyn hubka la ysu qaato cudur aanu qabin oo laftu qabac ahayn oo misna tahay qiyaastii qaarad aada u dheer oo lugta aad ka qaayibi, ama geedka qudhaco qun hareeri uga baxay misna qaadan waayo oo dib u soo qalloocsamay, ama dhabiga qoolkiiyo qararadiiyo jiicoo qansaxuu ka dheeryahay. qiso weeye ereyadu laga furin qardaaskoo qadaf laga ilaasho runta lagu qiyaasee maahmaahda qarada leh ninka xarafka qurayow ka ilaali qaladaad sharciyuu ku qabanine. ujeedkiiyo qadiyadaha laamaha qaroore ama gugii baxay ama aariqadoodiga gaajadu ku qaadho, qaanso lagu halgaadiyo leeb lagala quusto xadhig loo qorsheeyiyo debin aanu qabanayn, ama qaanso roobaad ay biyihii qulqulayaan loo diiday qaladaad runta looga qiildhigay waxaan qaadan waayo anna qoynsi kuma arag. qorlebi irmaan iyo jare aan qarsoonayn ninka xadhig u qooshee yiri waa ku soo qaban qubanihii salaasada qorshalii ka soo qaad, qaafilkiiyo warmoogana waxba ha ugu qabanine qanac oo ka sii daa. anna qaybta ii dhiman haddii qaadir ugu simo balan sheego qodobada, adna qaali luuley waxba kuuma qarinine inta qurus u nool yahay aadmigu ma quustee qaybta ka ogow rajadana ha qaayimin. qoomana iska ogow rabbi lagama quustee weligaa qur-aankiiyo diinteenna qaniga ah qabso oo ha sii deyn. balse qaadir mahadii wixii naga qarsoonaa qaaradaha ka iman jiray qalqallooci waa baxay runtii baa la qaayibay. qarihii iyo sabiibtii iyo quwaaxa iyo tibirtii baatrool qaneeca leh iminkaa dib loo qoday, qalbigeenna wixii jiray sharaf baa la qaayibay. ingiriisku qadafkiiyo qoontii uu inaga galay qaaradaha adduunkee nagu soo qamaamee qudhi ay jarayeen kala qaadi maayee iyadana ku qoro meel. waxaan qowlka hadalkiiyo ku qotomiyey maansada mar haddii qadiyadiiyo hadalkuba qiraal yahay, mar haddii qabyaaladi tahay shay qadhaadh badan, qarniyadiina soo maray dadku qoomamayaan, haddii aan khasaaraha hore la yska qaban jirin, iska quba wixii hore dalku waa qaboobiye qursiguna waa bixi. waxaan qaadir kuu qorin qabqab laguma qaadee hooyada qarweysiiyo balqadariya maatada gaadh shansa iyo carab maxamuud jaamac.